taasi waxay ahayd maaragtay sidaas aad u sheegayso weeye 24 saac ayna dhacday saaka kaliya ma ahan shalay way dhacday daraad way dhacday qof kasta oo la soo gala suuqa bakaaraha la soo gala qori ama bastoolad ama wax dili kara sidaas oo tilaabo looga qaadaya sidaas aan looga howlgalaya ciidamada oo dhanna amar lagu siiyay in maaragtay xiriyahooda ay ku sugnaadaan aan magaalada hub la soo galin marka sidaas ay ahayd khasaaraha ka dhashay khasaaraha ka dhashay dib baan ka soo sheegayna taliya qasim waxa jirta dhowr toddobaad ka hor magaalada burcad hubaysan ayaa xoog ugu soo batay oo mootooyin iyo gawaari wata dadkay dhacayeen mobilada kombiyuutarada markaa dabadeed ciidanka booliska ayaa la soo geliyay magaalada oo xoog loo soo geliyay dadku waxay dareemayaan xoogaa nafis ah marka hawlgallada oo dhan oo socday khasaaraha ka dhashay boolisku ma noo sheegi karaa khasaaraha ka dhashay markii aad rabto khasaaraha annagu waxaan sameynaa bishiiba mar ayaan maaragtay la isku dardaraa waa la dejiyaa khasaarihii hal mar dhashaba haddii la sheegayo waxba micnaa ma sameynayso laakiin annagu waxaan leenahay bishiiba mar baan waxaan dejinaa maaragtay wixii dembiye ahaayee dhacay wixii laga qaaday tilaabada ka ratibantay kii maxkamad aaday kii la sii daayey kii dembi lagu waayey waxaasoo dhan bil baan isku dardarnaa bishaas mar laa markii la isku daro sidaasaa maaragtay xafiis walba oo dowladdu ay leedahay oo arrimuhu ay quseeyaan ay sidaa ku helaan marka annagu waxaan leenahay qaabkaas laakiin si ahaanteeda waxa weeye shacabkana waa lagu wargeliyey ciidamada dawladdana waa lagu wargeliyey taliyaha ciidanka iyo taliyaha qaybta guud waxay amar ku bixiyeen gobolka banaadir in aan hub lala socon karin mid markaas hawl lagula jira ma ahane waxa weeye ciidankii militariga oo joogi jiray magaalada xamar iska wareegi jiray amaraa la siiyey tilaabana waa laga qaaday midka booliiska ahi haddii uu dhaafo fadhiga uu ka tirsan yahay waa dembiile oo uu degmo kale qoriga ku dhex qaato isagoo labisan xataa midkaan labisnayn iyo midkii meel kale ka yimid iyo midkii meel dheer ka yimidna iska badaa hadda waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa xaafadahan xataa gelaynaa guri kasta oo naloo soo tilmaamo oo shacabku ay soo sheegaan in nin hubaysani uu ku jiro amar waxaa loo haystaa in la galo